mudaharaadkan oo sababay dhaawaca hal qof ayaa ka dhacay gudaha magaalada Ceerigaabo waxaana durbadiiba soo gaadhay ciidamada qaranka iyadoona halkaasi ay ciidamadu adeegsanayeen noocyada kala duwan ee rasaasta isla markaasina ku kala eeryanayay shacabka halkaasi ku mudaharaadayay. Mudaharaadkan ayaa dadka mudaharaadayay waxay sheegeen inay kaga soo horjeedaan weerarka la weeraray jabhadda uu hogaamiyo Korneyl Caare oo xilligaasi marayay deegaanka Dhoob oo 45 kiiloomitir dhanka bari magaalada Ceerigaabo kaga aadan. waxaana weerarka ciidamada qaranku ay ku qaadeen jabhadda Korneyl Caare sida ay sheegayaan wararka hordhacahi. waxa weerarkaasi ka dhashay khasaare sababay dhaawaca walow ciidanku hogaaminayay Korneyl Caare ay meesha ka baxsadeen isla markaasina aan la qaban. maanta waxa magaalada Ceerigaabo ka dhacaya weydin muuqataan saqadha waa maqlaysaan guud ahaan magaaladii waa aragtaa sida dawladdu u galayso shicibka waa aragtaa sida u galayaan waxa la leeyahay deegaanadii tuulooyinkii sida Dhoob oo kale dadkii waa la xasuuqay dawladda ayaa waxa soo dhan ka dambaysa maxaa Caare loo dabagelaya ma kuwa garab cad jooga la qabto ee ina ka hinog yahay oo isagu fangareynayo waxaanu leenahay arrinta haddii aan leenahay waxaan dawladdu ay sameynayso wayna gobolka joogto xaaladu soo adartaa way santahay ciidanku naftaas badan beddelayaan wax ka socda dagaal badan baa ka socda magaalada waa ujeedaa xaaladu dejiso oo shayb kasta talaga daayaan qaladibana laynaysa waad aragtaan waxa hubiya timinka nala dalbaday cunaqabatay baana saaran dawada aragtaa dawladda Soomaaliyeed ma maqlaysid saa wax u dhacay oo say wax u jiraan balka waran shacabka baa la xasuuqay shacabkii baa la xasuuqay xaq baan loo sheegtay marse inaad argacay imika ciidan kale oo dulkeena iyo guutooyin kale oo nagu soo raray inta baa naga dulqad. si kastaba aatee xaaladda guud ee magaalada Ceerigaabo ayaa haatan deegaan kadib mudaharaadkaasi muddada saacada soconayay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceerigaabo.